sidee ayaynu ogaan karnaa in Facebook-geena la isticmaalayo amba inuu shakhsi kale inuu la jiro gudaha Facebook-geena inagoo aan ogeyn sidoo kale ma ogaan karnaa Facebook-geenu inuu ku jiro telefoon kale amba shakhsi kale telefoonkiisa marar badanna waxa dhacdaa inaynu mawlada saaxiibadeen ka galno Facebook account-geena kadibna aan kaga tagno account-geeni oo ku jira Facebook app-kiisa inagoo aan ka remove karin hadaba ma dhici kartaa amba suurtagal ma tahay inagoo adeegsanayna gudaha Facebook-geena inaynu ka remove karno saaxiibkii kale mawlkiisa soo aynan mawlkiisa soo qaadan laakiin si isticmaalina mawlkeena hadaba cashirkeena gudihiisa waxaan ku baran doonaa dhowr hab oo ay kamid yihiin sidii aad Facebook account-ga uga remove karin lahayd hadii uu mawlka kale ku jiro iyo sidii aad u ogaan lahayd in Facebook-ga lagu la isticmaalayo amba shakhsi kale uu mawlkiisa ka diiwaan gashan yahay Ramadan Kareem soo dhawaada saaxiibayaal maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa xaggaas iyo Facebook sibahan Facebook login hadaba maanta waxaan isku dayi doonaa inaan Facebook-geena ka saarno mawl kale oo ku jira inagoo aynan mawlka gacanta ku hayn iyo sidoo kale inuu ogaano Facebook-geena inay dad kale isticmaalayaan amba inuu mawlo kale ka diiwaan gashan yahay iyo sidii aynu mawlada kale uga remove karin lahayn sidoo kale bal waxaynu arki doonaa amba habkan gudihiisa ku soo samaysan inaad ogaatid mawlada kale halka kaga jira amba halka yaalaan sibahan location halka yaalaan amba magaalada matalan oo kale mawlkaas yaalo amba halka laga jiro Facebook-gaaga uu ku sheegaya marka habkan isticmaalno hadaba bal waxaan soo geli doonaa labada application ee kugu jira Facebook mid kamid ah Lite-ka amba F-ta kale Facebook account-gaaga marka soo gashid waxa taaban doontaa calaamadda saddexdeeda falaarood ee xaggan ku geynaysa setting-ka calaamadaha yar marka taabatid waxa soo tagi doontaa xaggan hoose kor baad u yar soconaysaa waxa tagi doontaa halka ku qoran tahay setting marka soo gashid halkan wuxuu ku soo saari doonaa qaybo badan oo ay ka yihiin personal information key translation key iyo font size key iyo card key iyo Facebook Lite update-kiisi hadaba xaggan ay ku qoran tahay security imanaysa security marka tagtid wuxuu ku saari doonaa saddex qaybood oo apps-ki iyo business-ka hadaba waxa tagaysaa ku qorto security and login ayaa taabanaysa marka taasi security and login halkan wuxuu kugu soo saari doonaa dhowr qaybood kugu soo saari doonaa oo ah change password iyo save your login info dhowr qaybood kugu soo doonaa oo app passwords application-da password ku xidhan adoo haba badan ku soo saari doonaa laakiin se halay ku qoran tahay see more amba eeg wax badan ayaa taaban doonta halka marka taabatid macnaheedu wuxuu yahay mobilada ku jira Facebook-gaaga amba halka laga jiro Facebook-gaaga eeg halka wuxuu ku yiri where you are login meelaha aad kaga jirtay Facebook matalan oo kale inta mobile ku jirta meelaha laga jiro intaas oo kale halka ku qoran tahay eeg wax badan baa taabanaysa wax badan marka taabatid ma ku aragtaa Facebook-na gacanta ku hayo waxa ku jira intaas oo mobile ba ku jira waxa ku jira ilaa iyo 6 mobile bay la isticmaalayaan adoo ka tahay waa lagu saarayaa active no waa lagu qorayaa oo kalbaki active ka waa lagu qorayaa hadaba sidii ayaan uga saari karaa intan oo mobile maxay tolay Facebook-gayga amba uga remove karin karaa hadaba imika wada aragtaa mobile kasta iyo magaciisa kaas waa Galaxy A21s wuxuu joogaa magaaladaas halkaas uu ka sii jooga saacad xilliga ugu dambeysay isticmaalo xilligu ka baxay xilligu soo galay inta wada aragtaa hadaba si aad dhammaan ugu wada saartid hadii aad rabtid cala shakhsi inaad uga saartid waxa taabanaysa mobile kasta saddexda dhibcood ee ka horeeya hadii aan taabto halkan wada aragtaa halku joogo mobile-ku nooc yahay iyo adiga ma aha ku yiri hadii imika halkan taabto mobile kaste faahfaahintiisa waa mobile halku joogo saacadu ka baxay amba saacadii ugu dambeysay iyo halku joogo iyana aniga ahayn hadaba si aan mobile-ka uga saaro waxaan oranayaa lock out hadii aan yiraahdo imika mobile-kaas uu ka baxay soo kale imika mobile kale aan taabanayna saddexda dhibcood sidii oo kale ugu soo saaraya oo mobile-du waa ka maanta ayay ahayd xilligii ugu dambeysay 12 iyo xilligaas halkaas uu jooga sidoo kale waxa weeyaan mobile-kina waa nooca adigana ma aha hadaba waayahay ma sameyn karnaa inaynu marka wada saarno wax mobile-kooda jiro dhan oo qof kasta oo laga saaraa wuxuu ku fiican yahay qof kasta imika ka saarayta imika matalan waxa dhici karta dadka halka ku jira inay yihiin dadkii aad maxay tole saaxiibada ahaydeen aad ka gashay Facebook-ga kadibna aad ku ilowday amba aad ka remove kareen amba aad aamintay hadaba ma dhici kartaa inaynu dhammaan dadkan ka wada saarno hadhow markay islaan Facebook dib u soo galana la weydiinayo password bal waxaan oran doonaa lock out baan oranaynaa dhammaantood ka wada saari doonaa ilaa inaka iska saari doonaa hadaba waa imika marka lock out naano wada aragtaa hal shakhsi inuu ku soo haray hadaba waan ka bixi doonaa inakina xal ka bixi doonaa markaan ka baxno waxaan isku dayi doonaa inaynu dibadda u soo baxno kadibna isnaano mawladii kale iska dhiga imika wada aragtaa Facebook-ka ugu sareeyo
kaagu sareeyo markuu ahaa imika saaxiibkii kale aan mobilka kale laga saaray waan sitaayo kale waan soo gal baan soodhanaya markaan siraa soo gal passwordka la weydiinaya amba waxa la weydiinaya maxay tahay passwordkan ku galay markii horena waa ii sameysnaa oo kaliya waan iska galay imika wada aragtaa oo waxa la weydiinaya passwordkii ayaa la weydiinaya hadaba sidaas waa habkaad ku badbaadin kartid Facebook-gaaga amba ku ogaan kartid mawlada kale ee ku kula jira Facebook account-gaaga markasta wuxuu baad la soconaysaa dhaqdhaqaaq ka imanaya xagga Facebook-gaaga si aanad xitaa laftarkeeda aanad u arag cid ka jabsanaysa iyo waxyaabo noocaas oo kale oo maxay toolay waxaad ogaanaysaa haddii aad halkaa la socotid in Facebook-gaaga cid ku guda jirto inay cid kale dhaqdhaqaaq sameynayso laftarkeeda haddii aad aragtid in cid dhaqdhaqaaq sameynayso inta log out wada tiraahid inta uu qofku password ku jeedo oo passwordka la weydiinayo ayaad passwordkaaga bedeli doontaa oo ka dhigan doontaa password cusub soo kale kana waa la mid oo imika wada aragtaa waan ka saaray intaas oo mawlid buu ku jiray isagu saddex mawlid buu ku jiray isagu oo waan ka saari karaa sidii kale hadhan weydiinaya passwordkii hore oo kale ayuu weydiinaya mawlidka hadda ka isticmaalsan ku sheegaya haddaba habkan yar kooban wuxuu noo sahlaya inaan ku ogaano mobilkeena amba Facebook-geena inta mobil ay ku jirta sidoo kale inaynu kaga saari karno mobil aynan gacanta ku hayn Facebook-geena oo aan ka remove garan karno haddaba maanta casharkeena intaas aan soo gabagabeynayna kulli waa cashar kooban waxaan rajeynayaa inaad habkan ka faa'iiday saaxiibo badan kulli weyna soo weydiinayaan sidee ayaan ku ogaan karaa in Facebook la isticmaalayo in kale haddii aad aragtid in mawlaka kale ku jiraan Facebook-ga waa lagu isticmaalayaa kaliya samee log out taabo kadib intuu log out marka taabati passwordka markii ka bedel habkaas waa habka ugu fudud aad ku ogaan kartid in mawlka lagu isticmaalayo xitaa haddii lagu isticmaalayo aan wali passwordka laga bedelin waxa muhiim ah inaad saas oo kale sameysid si mawlada kale dhan aad ugu refresh gareysid waxaan rajeynayaa casharkan uu ka caawiyo fadlan haddii aad markii warsa kanaalka soo booqatay subscribe garee bishaaro ma rabtaa inaad etika laakiin ku baratid hab free ah Rad Group waxay ku bishaareenaysaa inay ku furtay courses ethical hacking kuwaas oo ku baxaya luqadeena af Soomaaliga amba afkeena hooyo ma jirto wax ka fiican inaad hesho courses hacking oo ku baxaya af Soomaali amba afkaaga hooyo Rad Group waxay diyaar kula tahay inay ku baraan courses free ah kaliya laga rabo isdiiwaangelinta inta kale oo dhan courses waxaad ku baran doontaa si free ah waxaana la qaadanayaa dad kooban oo tiro xadidan ah waxa laga codsanayaa inaad ka soo mid noqoto dadka soo ugu horeysa isku soo diiwaangeliya hore u soo gaar isdiiwaangelintu way socotaa waxaanad gudaha courses-kan ku qaadan doontaa level kala duwan level kastana waxaad ku qaadan doontaa shahaado ku cadeyn ah amba certificate hana warwarin waxa lagu bari doonaa shaashada mobilkaaga siibahan Android iyo Apple haddii aad dhamaysato dhammaan levelada courses-kan waxaad qaadan doontaa shahaado diploma oo ku sahlaysa inaad ku shaqo tagto shahaadadaasuna waa shahaado la hubo oo gacanta si toos ah lagaaga saari doono amba lagu soo diri doono waxaad noqon doontaa shakhsi ka sita ethical hacking-ka shahaado diploma ah oo shaambadaysan amba sharciyeysan shahaadada sharciyeysan ay ku siin doonto Rad Group waxay ku sahlaysaa inaad ku shaqo tagtid amba ay ku noqoto cadeyn xilliga aad rabtid inaad shaqo doonatid uguna kaalay macallimiin si xirfadaysan wax ku baraya oo khibrad gooni ah oo leh barashada waxaanay ku barayaan haddaba ka soo gaariyaan ka dhamaan amba yaano ku dhaafin fursadani waa muddo kooban waxaana la qaadan doonaa dad kooban